madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u anbabaxay dalka Jamhuuriyadda Djibouti kadib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha dalkaasi Djibouti. safarka madaxweyne Biixi waxa ku wehelinaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton. afayeenka madaxweynaha Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo warfidiyeenada la hadlay ayaa sheegay in safarka madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu yahay xoojinta xiriirka Somaliland iyo dalkaasi Jamhuuriyadda Djibouti. madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi hogaaminayo ayaa saaka socdaal shaqo ugu anbabaxay wadanka Jamhuuriyadda Djibouti kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu ka helay dhigiisa wadanka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay xoojinta xiriirka labada dal waxaana madaxweynaha ku helinaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. aad baad u mahadsantiin. safarka madaxweyne Biixi ayaa ku soo beegmaya xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dacwad ka gudbisay dalkaasi Kenya taasi oo shir aan caadi ahayn uu ka furmay dalkaasi Jamhuuriyadda Djibouti oo ay ka soo qayb galeen dalalka qaybta ka ah urur goboleedka IGAD. Idris Maxamed Caynaan Goobjoog gudaha magaalada Hargeysa.